بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولها أمانك إيران أو أنسحيي أرنتي برلمانك شلتو أو أسجن أنسحيي مركا ماشي قدام بيسمى يسويان طبعا كهل الدونا وففهين الدونا إن شاء الله تعالى سلا سوكلا وحن كهل الدونا جواسيستي إيران أو قد كود بي أوقلي دعنا وامت سيدا قصة إنتهى إذن لو داقي دونا لaba kale oo adduunka lagu qabtay videogeeda in la wadaagi doona midda kale waxay maraysaa saxaafadii Israa'iil inay qirayso Israa'iiliyiinta inay ka dhigteen goobihii gargaarka meel lagu shishbarto waan isdul taagana bidin Allah taala aan soo ku bilowno hal mar carada Iiraan waxay naqsan tahay nacamha iyo waxay naqsan tahay mataqaanaa laakiin waa Ruushka hal mar xogaaya haddaad akhrisanayso kaasa waan u tageynaa fasiraadda iyo wixii arintan ku yimid oo dhan waxaa dabcan garabkeeda ka baxay Ruushka heshiiskoodana wuxuu ahaa in la isu gargaar hadal aan ahayn oo yaani gacan ah oo hub ah oo iyo wixii la midka ah laakiin Ruushka arintii wuxuu kaga faa'iideystay hoola kale arin kala soo baxaya Iiraan horta cabasho hoose ayaa la leeyahay ay u dirtay Ruushka iseen ugu faraxsaneen wixii ay kala kulantay ogow marka aad qof kale ku tashato horta dhibaato weyn inay leedahay haddaba isku tashan mar walba shakhsiyadaada hadda iska dhaaf dawlad kale dawladda waa arintooda waa burbur xaqiiqatan shakhsigan iska saasun qof kale ku tashanayso oo burbur ma asan naftirkiisa almuhiim say wax u dhaceen Ruushka sida heshiiska ka dhaxeeyay leeyahay Iiraan iyo ayaga Iiraan markuu Ruushka weerar iyo dagaal ay dhaxmareen asaga iyo Ukraine waxay ugu gargaartay drones oo xataa Donald Trump aad arkaysan asoo ka qaylinaya video kala ku soo bandhigi doona ilaahay idinkiisa ma aanan soo diyaarsan kaas sida ahata droneska la yaab kala ha ee uu yiri Mareykanka yaani ciidamada waxay u ceersanayaan sida qof ibn aadan oo kale markaas ay la wareeganayaan ilaa ay meesha galay ka daba galaan droneskaas Iiraan iska la leeyiri waxa kale oo dabcan ay ku caawisay sawaariikh oo waliba degdeg ah oo yaani aanan ahayn kuwa long range ah oo fog yaani waxay ku caawisay kuwa mid range ah iyo short range ah oo ciidamadooda haba yaraatay waxa lagu leeyahay sawaariikhdaasi Ruushka kuwooda maba inay isticmaalaan kuwa Iiraan ay isticmaalayeen yaani Iiraan waxay u caawisay si kale ilaab ah ama hadda marka maxay soo Iiraan sida Mareykanka oo khaaradda shanaad uga yimid oo Israa'iil ugu gargaaray in Ruushka asagana dabcan ugu gargaaro Ruushka laakiin u fiirso arintan wax dhacay Aljazeera baarida waxay leedahay horta Ruushka wuxuu arkay fursadba arintan maxaa horta galbeedkii cadaadiska ku saaray Ukraine ku soo hubeynay horta way ka mashquuleen Iiraan ay kaga mashquuleen marka fursad uu arkay arintaasi marka dagaalkan inuu ciidu soo afjaro ama Iiraan caawiyo uma baahnaba maxay leeyahay waa laga mashquulay mid kale oo arintaas ka dhalata waxay tahay inta dagaalka Iiraan oo socday Ukraine wuxuu u jukeeyay Ruushka oo beerka ka tumay saan caadi ahayn waxa la qiyaasayaa 2 bil dagaaladii dhexmaray Ukraine iyo Ruushka waxa ka darnaa 10 bari Iiraan iyo Ruushka ay dagaalamayeen 12 bari ayaa ka darnaa 2 bilood oo kaamil marka la isku barbar dhigo يعني sidoo Ruushka uga faa'iideystay duqeynta iyo dabagalka ciidamada iyo difaacyada burburinta oo maxaan ku dhahay Ukraine midaas waa mid kale waxay tahay nacam Iiraan shidaalay dhoofisa ama yani iibisa dagaalay ku jirta wax walba ay xiran yihiin shidaalkii adduunka kor u kacay Ruushkana kaligiisa baashalay ka warhade masaa'ib qawmin inda qawmin faa'iidu samahan macnaha masaa'ib qawm kale faa'iidadu ay tahay almuhim yani Ruushka دخلوا بكهليبة أو زيادة تقريبا 15 إلى 20 أيو شيء هو ركعي يعني برسنتج يعني أنت هسي روشة وحولي المهم دخل دق أو عادي أنا هين مركا أم باهن إن أوصل حجرو سي يعني هي إيران أي أنت أوجهك ست لا محايلي هلا طبعا كل واحد هاي وحي يسكسوا بعدين به أرين عجيب أو وناسن رجال بيتك قارها مريكا يسكسوا بعدين ويكلا فوقايين maxay isku soo dhawaadeen hada Iiraan adinka dabcan saaxiibatihiin lahadal amal Ruushka anaga la hadlayna Iiraan anaga dhaxgaleen ikada iyo marka almuhim arimaha oo dhan marka la fiiriyo Ruushka dagaalka Iiraan socday inuu caawiyo iska dhaafay dana ugu jirtay danuna ka dhax arkay sababtaas oo shib oo dhahay bal hadaladii la ka soo yeeray Iiraan marka inta ka cariisanta waxay leedahay waxaan isku ogeyn aawi inta ka baxdeen iyo wixii la midka kulay waxa la tilmaamayaa xogaa adiga cilaaqadeeda inaanan si wanaagsan taas keenta leeyahay hatta Ciraaqji markuu aadayay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Ruushka inuu u sheegay Mareykanka inay weerari doonaan waatay Ruushka ka cawadeen arinta naftirkeeda ay dhaheen waay inuu u sheegay inay Mareykan weerari doonaan hadda cid
sida kuu gashay miyaad u sheegaysaa sirahaada wixii la midka ah almuhim taa waa taa dhinaca kale hal mar israa'iiliintan ila fiirso waxay sameynayaan waxay mamnuucayaan ama ay hor istaagayaan dheh ay banadayaan gawaarida xamuulka u wada falastiiniinta u gargaaraya dhulkay gogladeen ay fadhiisanayaan gawaarida way u diidayaan inay maraan okay gawaaridan sidaa loo soo dhibay oo mararka qaarkiis darawalada inta loo galo la tumo ayaa waxaa dhacaysa markay yimaadaan gudihii Gaza u fiirso arrintan ciidankii Israa'iil iyo kuwii qiiminaya loo dhiibaya arrintan haareed ay qoraysa haareed soo adkaysan sama maxay leedahay waxay noqotay goob dileed goob dil la isku beegsado ayay noqotay goobtii gargaarka lagu qaybinayay waxay leedahay marka ciidamada Israa'iil hadda ugu waa saxiifada Israa'iil iska leedahay kuwada ugu afka dhaadheer haareed ciidamada Israa'iil waxay si ula kac ah u beegsanayaan dadka reer Gaza ee gargaarka soo doontay ee gaajaysan ee rafaadsan ee baahan oo ay u macnaha beegsanayaan ay u tooganayaan si ula kac ah mar alla markay dadkii isu yimaadaan waxa la leeyahay meeshaas taga ilaa maalin walba hal meel macnaha ma aha meesha gargaarka lagu qaybiyo marba hal dhinac ay u guuriyaan mar hal un adiga waa ereydii taqriiban laakiin mar intay dhigaan mar halkaas ay dhigaan mar halkaas ay dhigaan marka ciidamadiiba si toos ah dhac u dilaya ciidamada qaar maxaa laga sheegayaa waxay leeyihiin hadde waa amar aan haysano inaan macnaha aan rasaasayno xabadayno kaan is aragno ama aan aragno xogaa inuu xoog leeyahay inaan nafta ka qaadno soddon ay la sheegaya marka qaarkiis inay ku dhintaan gargaar bisi soo doonteenna midaasi waa taa dhinaca kale Iiraan saxaafadda Iiraan ayaa soo gudbinaysa nacam video ay tusoo horta cod inuu leeyahay uma malaynaa laakiin almuhim laa ba'as un fiirsada waan yani idin fasiraya wuxuu macnaha ay halkan ku qoreene waxaad arkaysaa waa mobillo electronic kala duwan bahalada GPS ah oo kala duwan kaarar kale oo tiro badan ayaa waxaa lagu qabtay laba qofood oo Iiraaniyiin ah waa Iiraaniyiin waxayna isu dirayeen khaasatan xilligii dagaalka uu socday risaalooyin labadooda dhexmarayay ayaa jirtay iyo meel saddexaad oo wadanka banaankiisa ah oo midkooda oo u diray macnaha kana soo diraya kan marka uu soo diro kan kale u gudbinaya kan kale gudbinaya marka adiga waxay sameynayaan yani wareerin system yani ayaga isu diraya مثلا marna kana diraya marna kana diraya markaas khaarijiga ama banaanka ay wixii macluumaad ah ay ururiyeen ay u diraan maxay ururinayaan marka mobiladan aad arkaysaan GPS-yada aad arkaysaan horta GPS-yada waxay ku rakibaan meelaha diyaaradaha Israa'iil duqeynayaan ama waxay ahaatay Mareykanka hadday tahay almuhim goobo qaarkiisa ay cayiman iyo xafiisyo ama guryaha dadka taliyaasha marka ay degan yihiin ay GPS ka soo qabanayaan ila GPS waa maxay waa hage diyaaradii hadii halkan GPS keeda uu yaalo oo macnaha loo sheego hadii guriga aad address galiya amal wayaan taariikh la soo diraya guriga ku dhacaya waana sababta keentay ragga qaar ee Iiraan in la laayo oo waliba gurigooda ayagoo jiifa lagu dilo almuhim GPS kaas u isticmaalayeen mobilada waxa ugu jiray oo aad arkaysaan tiradooda si u badan tahay u fiirsada waxa ugu jiray macluumaad kala duwan boqolaalka mobil ayaga isticmaalayay laakiin waxa la leeyahay labadooda ma ahan ummad kala jirta waa lagu daba joogaa laakiin labadana la soo qabtay midaasi waa taa midan kana ka sii daranba aydan tan waa arin kala khosol badan waa isla telefishinka Iiraan soo gudbinaya waxay leeyihiin nin ayaa jira oo metroga Iiraan ayaa lagu arkay laba maalin asagoo maalin walba halka mar aada mar halka aada waxa ka shakiyay marka ilaaladii metroga ayaa ka shakiyay waxa la daba dhigay marka booliiska area-daasi ayaa la daba dhigay ninkan maalintii hore shaki ahayd maalintan labaad marka si rasmi ayaa loo daba dhigtay waxa la arkayaa area soo imaanaya alaab meesha taala ee dhulka مثلا adiga meel metro ka mid ah adiga meel god oo kala uu sameystay ayuu yaanihi wax gelinaya wax buu ka soo bixinaya meesha la tagay meesha waxa ugu jiraba yaanihi intaasoo mobile ah intaasoo maxaan ku dhahay yani adduun ah ayaa ugu jira hadii la soo saaray mobiladii asana la qabtay afcibri ayaa oo ku hadla qofka jinsiyadiisa lama sheegin Iiraan wayaan ama kada lama dhihin laakiin ku kala saasay aan Iiraaniin ahayn almuhim waa la soo qabtay afcibri ayuu macnaheedu risaalooyin ku dira ka soo dira halkaan alaabtiisa u taala guri uma yaalan halkaana waxay u tahay ilaahay amarkiisa yani meel public ah oo aan ay ahayd macnaha in ay ka amaan fiican tahay oo indhaha ay aad u qaban lahaayeen ayaa waxaas lagu sameeynaya mar guriyahooda maxaa ku sameeyeen ka war
ومثل كلا كان وقدام بين محيك ديجانتها أرنتان قولها أميجا إيران أي كأنسحيين إن لا علي هشيسكي كلا دحية IAEA قرادي كورميرياشا أها النيوكلير كإيران محو معناها أرنتها كديجانتها محا يعني هي مهم يكوتها برلمانك إيران مر المركو وح أنسحيه وحاجرة قولها أمانك وأنا أصلا أنسحيا هدونا أنسحين أرنتاسي معناها ما أهن أرن سعوني سو شرعي أهنا حتى مركب برلمانك شالته أرن وين أهيد إني أنسحيان قوله كورميرياشا إني نلشقين أرن وين أهيد لكن waxa la sugayay qoladan inay xogaa soo celin doonaan maadaama aynan soo celin oo ay dhahan nacam oo idin ku raacnay batatan Iran waxa meesha ka baxay ay joojisay wada shaqeyntii kala dhaxaysay totally 100% hadda sida qolada ay ma dhici doontaa in maadaama saxiix ay wali yihiin Iran oo saxiixas inaan ka bixin in talaabada ku xigta lama yaqaano laakiin arinta maxay tusaysaa Iran inay serious tahay macnaha in ay dhab ka tahay arintan iyo wixii ku dhacay iyo qolada inay jawaasiis ahayn iyo wixii la midka waana teedahay markuu dagaalka dhamaado aan isu iimaanina almuhim arintu way bilaabatay talaabiyoon xiga aan arki doonaa ay qaadi doonaan intaasaan kusoo gabagaynatan ee videoga dambe salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulli insha Allah ta'ala waxaan diyaarinayaa qaabka Israa'iiliyiinta ama yahuudda guud ahaan ay u sixiraan caalamka madaxdooda insha Allah ta'ala video aan diyaarintiisa wado hama waan videogaas xaqiiqatan xiiso leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markale